shalay barnaamijka waxaan idinkugu soo gudbiyey markab gargaar wada in uu tagay xeebaha Gaza. haddaba markabkaas waxaa la isweydiinayay sida gargaarka uu ku dejin karo, sababtoo ah dekad ma jirto, waxba ma jiraan. waa tii Mareykanka uu yiri dekadaan ka dhisayaa, laakiin waxay qaadanaysaa 2 bilood ama 60 maalmood ugu yaraan dekad macmal ah. marka qaabka loo dejinayo iyo sida gargaarka ay ugu baahan yihiin Falastiiniyiinta ayaa su'aalo badan laga keenay. haddaba marka waxaa la leeyahay markabkii waxa uu tagay xeebaha Gaza. Israa'iil waxay isku dayday inay dadka xabadayso saacadihii ugu horeeyay markii la ogaaday markabka gargaarka wada, inkastoo markab weyn aanu ahayn oo doon oo kale uu yahay, laakiin gargaar badan uu waday. ilaa 200 oo tan oo gargaara oo cunno ah ayuu waday. marka Israa'iiliyiintii marka macalinka weyn ayaa la hadlay, waxaa la yiri dadkan gargaarka qaadanaya ka leexo, sida hadda warbixinada ugu dambeeyay ay leeyihiin. bas Israa'iil marka waxaa la yiri way ka leexatay. waxaa la sameeyay marka doontii iyadoo meesheeda taagan oo markabkii yaraa meesha isagoo jooga oo gargaarkii wada, ayay wax doomo yaryar inta qaateen Falastiiniyiintii ayay gargaarkii soo daldasheen, waa ka soo qaateen. wuxuuda way soo habaysteen, way soo qaateen, doomay ku soo qaateen, baddaa la keenay, xeebta baabuuraa lagu raray, hawsha ha socotaa la yidhi. marka mushkiladda taagan waxay tahay gargaarkaas marka bartamaha iyo koonfurta ayuu aadi karaa la leeyahay. waqooyiga way adag tahay in gargaar u gudbo. waa meesha Israa'iil ay dadka ku gaajaysiinayso oo dadka la leeyahay hadda waxay maraysaa meeshii ugu xumayd in maaragtay dadku ay nafaqa darro iyo gaajo ay u dhintaan. marka warbixinta marka la yaab kale ee la qoray aan idin tuso qaabka markabka ay ula degeen. haddaba wakaaladda wararka ee Turkiga ee la yiraahdo Anadolu ayaa waxay leedahay doomo yaryar ayaa bilaabay inay markaa ka qaataan gargaarkii uu waday markabka oo markaa ka yimid Laranka meesha la leeyahay Spain. waxaana la sheegayaa in xeebaha Gaza ay arintanu ka dhacday oo maraakiibta yaryar ay gargaarka ku daldasheen. haddaba warbixintu way sii socotay, waxaa leeyahay waxaa dhammaaday howlihii ay kala soo degayeen xamuulkii saarnaa markabkii gargaarka ee magaciisu ahaa Aubin Armas. subaxnimada Sabtida ah ayaa la sheegay in hawshaasu ay dhammaatay. waxaana markabkan uu tagay Gaza xeebaheeda jimcihii shalayto, halkaas oo markii uu tagay kadib ay bilaabeen Falastiiniyiinta inay kala soo degaan wixii uu waday markabkaas. markabkii Falastiiniyiintu waa la degeen, dad gaajaysan wax celiya ma leh. doomahoodii inta soo qaateen, qawaarib ayaa lagu yiraahdaa af carabiga, doomo yaryaroo maaragtay ayay ku soo daldasheen waxoodii. markabkii inta la fuulay ayaa wixii soo qaateen. markii hawshaasu ay dhacday oo dadku ay ka fakarayeen see dadkan ula degayaan, ayaa wadamada qaar waxay bilaabeen inay yiraahdaan iyaguna annaguna waa samaynaynaa sheekadan oo macnaha gargaarka badda ayaan gudbinaynaa, hala degeen Falastiiniyiinta ha qaateen. marka waxaa ka mid ah dowladaha maanta hadlay markii hawsha ay arkeen. Japan ayaa ka mid ah. dowladda Japan afayeen u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda waxay tiri dowladda Japan iyaduna waxay mari doontaa wadadaas oo macnaha gargaarka Qubrus inta la geeyo kadib badda la soo mariyo halka laga soo dejiyo. marka waxaan u gudbaynaa wararka ugu waaweyn ee maanta haysta adduunka. waxay tahay Xuutiyiinta tallaabo ay qaadeen ayaa hadda adduunyadii dhan ka naxisay. awal isbaarada waxay u tiilay Xuutiga badda cas iyo gacanka Cadan iyo Bab al Mandab iyo meelahaas isbaarooyinkooda yaaleen.
isbaaradii say wixii soo mara meesha nagta ugu hayeen maraakiibtii dhan waytay ka kala carareen maraykan iyo ingiriis iyo waxa uu leeyahay kaliya inta soo marmaageen waa tii markabka ingiriiska ay dejiyeen isbaaradii marka waa laga cararay badda casayd iyo gacankii cadan iyo wixii oo dhan maraakiibtu way ka carareen waxay bilaabeen marka maraakiibtii maraykanka iyo kuwa Israa'iil badweynta Hindiya inay maraan oo aaganba ay ka soo dhawaanin xuuti marka bisha ramadaanka wuxuu yiri waa bishii jihaadka iyo cibaadadu dhah waa laba jibaareena weerarada laba jibaarkii waa ka dhabeeyeen xuutiga inta badan waxa la yiraahdaa hadalkooda iskama hadlaan ilaa way ka dhabeeyaan nimankii marka xuutiga waxay sameeyeen badweynta hindiyada la sheegaa mataqaan waa badda Soomaaliya qayb ay ka haysato way xamar ilaa Kismaayo iyo Baraawo iyo dhulkan waa badweynta Hindiya ilaa Tanzania iyo aagaas aad meeshaas waa badweynta Hindiya ilaa Hindiya ka tagto dhulkaas waa marka badweynta Hindiya maraakiib halka maraysa ayay weerar ku qaadeen waliba waxay u isticmaaleen gantaalo casri ah oo meel fog ka imaanay waa cajiib haddaba marka warbixinta laga qoray sheekadan aan idin la wadaago telefishinka Al Jazeera ayaa wuxuu leeyahay weerarada xuutiyiintu waxay gaareen badweynta Hindiya ayay gaareen alle haddaba marka waxa leeyahay taasi waxay sheegaysaa wararku sheegayaan in xuutiyiintu ay haystaan sawaariiq codkooda ka dheereeya u fiirsada sawaariiq codkooda ka dheereeya lagu weeraray maraakiibtaas maraakiibta yaa iska lahaa warar hordhaca waxay sheegayaan Israa'iil iyo Maraykan inay lahaayeen marka waxa la yiraahdaa afcarbeedka waxa la yiraahdaa sawaariiq fard sawtiya la yiraahdaa dawladaha qaaraan haysanin waaweyn ee adduunka waa kuwa Ruushka uu ku faano Iran iyo Ruushka iyo ay haystaan sawaariiqdaas marka codkooda ka dheereeyaan gantaalka marka uu codkiisa maqlaysid jaa adeegtay meeshuu rabo ku dhacayba adiga marka maqlaysid inta ku gudbay ayuu meeshii loogu talagalay ku dhacay marka ninka uu ku dhici doono maba maqlaayaba macnaha marka la soo rido waa la joogaa marka gantaaladaas waxa la yiraahdaa sawaariiq fard sawtiya la yiraahdaa waa waxay ka dheereeyaan codkooda ka dheereeyaan marka waa sawaariiqda ugu casrisan adduunka waaye kuwa ay isticmaaleen nimankan xuutiyiinta ah oo weerarkaasi ay ku isticmaaleen haddaba marka warbixintu way sii socotay waxa leeyahay xuutiyiinta wadanka Yemen waxay sheegeen in ay sameeyeen dagaalkoodii inay gaarsiiyeen badweynta Hindiya iyagoo waliba cayrsanaya maraakiibta Israa'iil ee halkaas maraya ayay cayrsadeen marka waxa leeyahay waxa sidoo kale ay sii wadaan inay ka mamnuucaan maraakiibta u socota dekadaha Falastiin ee xooga ay ku haysato Israa'iil waa dhulka Israa'iil dekadaheeda markab kasto u socda inay halka ku weerari doonaan oo ay markaa weerar ku qaadi doonaan haddaba marka warbixinta way sii socotay waxa leeyahay weerarkan ay qaadeen kooxaha xuutiyiinta oo ay ku qaadeen badweynta Hindiya waa mid muujinaya horumar weyn oo ay xuutiyiintu sameynayaan iyo inay haystaan awood military oo aan horay loo arag ama laga filaynin waxayna sheegeen in gobolka mandiqada Carabta ama gobolkan Carbeed ay tahay meel khatar ah xuutiguna uu hadda xisaabta ku jiro maadaama uu la soo baxay gantaalaha la yiraahdo sawaariiq fard sawtiya way gantaalaha xuutigu hadda isticmaalayaan waxa isticmaalay labadii sano la soo dhaafay qaybo kamid ah Ukraine ku weeraray Ruushka ku weeraray gantaalihii patriotic ee Mareykanku geeyay
ee gantaalaha inay ka hortagaan loogu talagalay iyo kuwii kale waxba way ka qaban waayeen. marka sawaariiqdaas farta sawtiga ah ayagaa noocyo kala duwan leh, marka magacyo kala duwan ay leeyihiin. marka hadda waxaa la baaraa, waxaa leeyahay gantaalahan intee ka keeneen. iiraan horta ma haysataa? haa. ee iiraan laftirkeeda waxaa leeyahay 200 in ka badan ma haysan karto gantaalahaas. waa gantaalo qaali ah oo ku shaqeeya shidaal iyo adeegyo kale oo la yaab leh. waxyaabahaasuu isticmaalaa gantaalkan. marka dowladihii waaweynaa dhowr boqol ka haysta. xuuti marka oo jabhad ah oo buurahaas ku jira xaguu ka keenay?